wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay now waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xagee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyay allay leedahay ودع يا رمضان مرحب يا كلمان 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 gabada dadkoo dhan jeclaaya miyaa kalamaan ودع يا رمضان مرحب يا كلمان soomaalida dhan waa noo sabartee wixii la rabayna haddaan keengne ودع يا رمضان مرحب يا كلمان hadiiba la soomay waa soo noqonee miyaadnan ahaynin dadkii kalamaan ودع يا رمضان مرحب يا كلمان unuka waa caburnihi muddadii aan maqnaynin dadkiyaa wax u sheegaya yaa kalamaan ودع يا رمضان مرحب يا كلمان kooxdaydii kaalamaaniyo kaftamayaashii waa kuwan kooxdaydii kaalamaaniyo kaftamayaashii waa kuwan haye war muddaan bulshadeennu tixihii gabagiinna iyo tiraabkiinna maqlayne dadku maydin tabeen mase waydin tuumeen suhun iyoonaysa san iyoonay soonkaysan ka sabarteenba unin hadda su'aaliyo jeediyaan sababti lisiinka suubii war waxaa la yidhi isma tuhunna laakiinse waan tala wadaagnaaye dadku waa tabaan ruux kastoo xaqa ku toosnaada war intii kalamaan ay maqnayd dadkii xilalka laga qaaday maxaad ka ogtihiin cid allaaliyo ciddii xilka laga qaaday intay kalamaan maqnayd looma dhamma xilka qaadistood halsa ilaa sahuurto walan simanaaday sidii la fadaayi war nimanka gudoomiye ku-xigeenkii maaliyadda gobolka banaadir ramadaankii kan ka horreeyey saxuuraa la magacaabay ramadaankaanna afurkiyaa laga qaaday war soonkan hadda dhammaaday madaxweynuhu xilal badan uu magacaabay reer gedana waxay dhaheen madaxweynuhu jufudiisu ku kuusay loomana dhamma war haddiiba reer geda madaxweynaha cadaalad darro uga cabanayaan soomaalidii kale maxay sugaysaa war isan walwalba sheego kow dheh sidii la fadaayi suurtagali widaa'iyey war waxaan maqlay geda waxaaba la geynayaa fanaaniin hanuunisa war niyu waa beri maa lageen rabaa war waa hadashaan haddana waa murantaane 15 May madaxweynuhu wuxuu la hadlayay sawirradii SYL reegada ma ahayn wuxuu la hadlay war 13 leegada markii sawirrada la soo safay madaxweynaha 14aad la iga dhigay muxuu dhihi waay war reer kalmaano murmaasan waana doolasaana isin gudaagan istireedana dad badan koroonaga ka baxaya war meeysid karoonaha sidii shabaabkii kala loogu hanjabay oo ma maxkamad karoonaha u yeeri kartaa la furay karoonaga laaluusha la siiyay hayehe ma karoona lacag badan lagu helayaa dhahdeen iyo baago taas waa maleeyahay war madaxweyne Sheekh Shariif wuxuu yiri qalabkii loogu talagalay in karoon looga hortago suuqyada magaalada lagu galaa Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh haday hadlaan waxa loo diyaariyay inay u jawaabaan Salaad Cali Jali Cali Maxamed Geedi sheekh dheero baan hadalana in jawaabahe warka ay dhaxgelinine wasiir Maarey wuxuu yiri qof kasta ee dhinta dawladda Soomaaliya waxay u aqoonsatay inuu karoona dilay hubqadkaada wanaagsan dan xanaankaada oo waan dan ila hadal adigaan ku haweenahay yeeray war wasiir Maarey wuxuu kaloo yiri waxaan bilaabaynaa toddobaadka bacsiga coronavirus corona must be out ayuu raaciyay must be out kuna ma af corona warada waxa la yiri coroonuhu kadeedkiyo kadiidadii xanuunkii ma wuxuu ku sii daray kororsiga xafiiskiyo kaartooyin hoosoo ku si lagu ilaashado waa sidaan rabi war coroonuhu hadduu dacwadii kiiska badda dib u dhigay shirkii madasha xisbiyadana dib u dhigay doorashadana amuu dib u dhigaa waa sidaan rabi war lanko waalanga hatu ka hor guri iritis fidhi anti tuurtugu kori kiisadii gurbigi liboodbodaydaada ha anti ariya sidii aan fadaay aha yaari sidii ay fadaay uma aha armadeeyo wax ku dheelkaan kugu nacay waxa uu ratigu la buubay islaan waalanay ahayd mugow la boodboodana waxay tir waa barki ibilnaay waxaana la yiri hoo bilcaantii xiska beeshay ow hadow la buubo wow beegta bilcaantii xiska beeshay ow hadow la buubo wow beegta maaho
warnimaya war ma haysaane doorashadu waa ka weyntaa wax coronavirus u istaago warlan yaw adin ameeka darsantii hisbigii himilo qaran warya cabdikuus waxa uu sharaxan yahay gudoomiyaha baarlamaanka hirshabelle hanabi war haddii cabdikuus loo doorto gudoomiyaha baarlamaanka hirshabelle waxaan hubaa inuu nabadii noolo daacad u noqon lahaa war khudbadaha ra'iisul wasaaraha suu koobiyeenaya xilkaba laga qaadi lahaa warnimaya warkaan ay qasine doorashada waxaa la yidhi way dhacaysaa gudoomiyaashii baarlamaankana turkiga ay ka yimideen gudoomiye xaliimayahayna intaysan bishaan dhammaanaya baarlamaanka hortegaysa oo arrimaha doorashada ka hadlaysa doorashada bajad man hayno dib halan dhig waa eri doonte waa sidaan rabnay war safiirka maraykanka wuxuu yidhi doorashada soomaaliya haddii wakhtigeeda ku dhacayso qarashkeeda waa naga diyaar waa sidaan rabay hisbigee ee tahe war ma haysiini madaxweyne ku-xigeenkii puntland axmed kalaash wuxuu yidhi bejkii facebooka miyaa u kala kacay war waxaa la yidhi madaxweyne ku-xigeenka puntland bejka facebooka wuxuu samaystay markii warbaahinta puntland loo diiday marka bej ciil lagu sameeyey miyaana kala kacayn yaa gudoomiyihii baarlamaanka puntland dhooba daareed turkiyow hee hadda joogaha la yidhiye isaguna bejxa u samaysa waaye ha u kala kacee war dhooba daareed markuu maqlay den iyo karaashaas ku dhacay life inuu soo galo afka furtay waa sidaan rabay miyuu yidhi waraadha warka waa la waalateene madaxweyne ku-xigeenka puntland wuxuu yidhi aniga iyo madaxweynuhu ismaba salaanno wada tashi warkiiba daaye warnimayahow madaxweynaha puntland siciidani waa xubinta ugu weyn ee kalamaan waxaa wax laga weydiiyey khilaafka isaga iyo ku-xigeenkiisa ka dhexeeya markaasuu wuxuu ku jawaabay dowladda soomaaliya waxay kala qaybinaysaa somalilan war madaxweyne ku-xigeenka puntland markii la weydiiyey khilaafka meeshuu ka bilowday wuxuu yidhi madaxweyne wiilkiisuu keensaday anigu wiilkaan keensadayna waa la ceeri war golaha wasiirada inaan ka wada tashanaba waa diiduu yidhi war maysin intay kalamaan maqneed 18 May somalilan u dabaaldegtay madaxweyne muuse bixi oo korona afka soo xirtayna wuxuu yiri arrinta annaga iyo Soomaaliya naga dhaxaysana maxkamadda adduunka horgeynayna timirtii horeba dab loo waay la yiri dacwadii badayna maxkamadda adduunka horta intay geysay war madaxweyne xasan sheekh wuxuu yiri dacwada badda annaga horgeynay maxkamadda adduunka markii noogu dambeysana meel fiican ay mareysay markasta oo maxkamaddu arrinta u fariisatana wakiilada nooga qayb galaa maxkamadda irideeda maray ka soo baxaan shirjir aad ku qaba jireen dadka Soomaaliyeedna gudaha iyo dibadda waa la socon jireen xaalka laakiin hadda dib baa loo dhigay kaliya hal la maqlaa wax faahfaahin oo dadka Soomaaliyeed lala wadaagana ma jiraan marka timir la faa ku jirto walaac badan buuna dadka Soomaaliyeed qabaa dawladdu ha qaaxdo arrintan war maxkamadda adduunka Soomaaliya dadkii u qaabilsanaa dacwada badda mid xilka laga qaaday iyo mid xilka loo dhiibay iyo mid iska tagay noqdeen waa sidaan rabay horta rabitaan aan lagula rabinood kaliga rabtahay ahayd war miyaadan baqal rabitaan qof baa jaamac oo loo rogmanaya rabna rooba la ku waay widaayay armaday isaaq waa ku beentaad inta roob laga waayo fatahaadaaba loogu leeday war ergeyga midowga Afrika u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Francisco Madera waa tuu qaramada midowga ka sheegay in Axmed Madoobe oo qabiilkiisa la heshiiyay balse arrimaha Jubbaland aan laga heshiin Cabdirashiid Xidigna waxa uu yiri dacwad ka dhan ah Francisco Madera ayaan furanaynaa maxkamadda adduunka horgeynaynaa waa sidaan rabay yaa muga maxkamadda adduunku ma unun kaynoo howlaadahay war doorashada hadii dib dhacdo hataa maxkamadda adduunka la horgeynaa waa sidaan rabay war waxa la doorashadu haday baaqato maxkamadda adduunka la horgeynayna maleeshiya beeleed baa la horgeynaya ahey bilawteena waxaan dagaalahayn daawiliguwa niman shantaada ka reebin sharci ka mareeb war hooy mukuroogdana falku suwe coronavirus haye faraha dhaqda wariya haye kala fogaada dad yahow haye yaan la isku imaanin haye yaahu mana saana leeso qalqaloocayo mugi la dhahayo korkiinu ha qaace war bishii Ramadaan tartankii degmooyinka gobolka Banaadir ay idaacada kulmi ay qabatay waa la isku fara saaray haye war la isma feerin aqoona la kala kororsaday war taariikh dalka lagu tartamay war haddii aad tartan aragto dagaalma dhinne waa lagu kala adkaaday haye dayniile kaalinta koowaad ay gashay haye kaaraan kaalinta labaad ay gashay haye hol wadaagna kaalinta saddexaad ay gashay war dugsiyada saraba waa tartameen war ma haysiina bishii sano kala barmaraysa ay dawladdu bixisay mushaarka shaqaalaha iyo ciidanka haye hadda 3 sano markii uu horeysay ee mushaar la soo hormariyo war ma haysiine General Ali Gaab toddobaad gudihiisa laba qarax lala beegsado Ilaahay ka badbaadiyay marka generaalka macdanta ku jirto laga baaraya maxay tahay war ma dil daba ka bulud buruuf ma kiraysido war Ali Gaab waxa lagu haystaa aan u maleeyay jannadii wax ogaayuu ka dambeeya wax ogaalku ma dambiya war Mustafa Shii Ilmi Sawki yiri
qofkii wax ogaada dila intii la ogaata dila ogaalka laftiisa dila si aan waxba loo ogaan aryaa generaalku waxa uu yiri waa isxaan fala asaa la yiri ma lagu og yahay asoo yiri ilaahay bay ka tahay asaa la yiri xageed eersata asoo yiri agtaydan u filay war generaalku taamba dhihine adaa u yiri Cabdullow war anigu waxaan ka shiki caligaab waxa la yiri wax ku qarxay kama hadli kartid dawladdiina waa ka hadli diiday qarso waa qabtaa mid arrintu maraysa war isin leeyma erne wixii laga qariyay waa qubtaan ama waa qurmaan war waxa la yiri qatar waa ku jirnaaye qaadirkoona badbaadi waxa kale la yiri qolaba calankeeru waa caym war may kale leeray dadkii sabta furaan sahanayeen dadkii furaan sahanayeen war habeenkii sabta soo galaysa markaan furay fogaanayga ay soo wacay wuxuu yiri boqolaal jamhadood oo bisha iibi taqaano baan waanu qabnaaye baafin baan ku jirnaaye wax ma baayacad oo ma la sheega bishii 7 saamiin mi la argay dhan shak war dunida islaamka iyo dawladda Soomaaliyeeba laba saaxiibnimo ku faafiyeen soon qaatahay oo aysan ciid ahayn tusta ma ishaan ireed kadibna dawladda Soomaaliya 6 saac bar habeenimo ay tiri waa ciid ayagoo dhaariyay oday 60 jir ah oo bisha arkay war adaan wax ogeyn Abi Ahmed ka horeeyo 5 saac ku dhawaaqay war odayga 60 jirka dadku waxay ku xaminayeen in bil ka hor indhaha loo fiiqay dhakhtarkii u fiiqo ku faanaya anaaba arkay ninka saas bishii u arkay ana indhaha u fiiqay aryaadaha ninka bil kooba yiri 7 saac awanimaan arkay indha urdoona war Allah u naxariistay gudoomiye gobolka Mudug Puntland ee qaraxa lagu dilayay Allah u naxariistay gees Soomaaliyeed buu ahaa waasaas kuwa kale qaraxa nag looga dhiga fulayaal miyay ahaayeen war ma haysan shabaab waxa lagu duqeeyay shabeellada hoose iyo bay iyo jubada hoose taraakiil badanna waa la laayay leeyahay hadda sidii Cabdullaahi sheegi jiray imaamadaydii ma aragtaa ka dhacday ahey hamashoodi titingu billaw tan maaha bilson wasinka neebsiday ma isan masoo tiyaatana sonku wada ma soo masana wareer reer kalamaan war ma haysiin Taliban waxay tiri heshiiskan Mareykanka la galnay waa ilaalinayna aad iyo aadna u xafidayna haye shabaab xaa u diiday buga inay heshiisyan nala galaan ay xafidaan hatta ma xafideen may bilsonga jugdheegdana waraxantiina bishii soona dadku ka nasteene kala hortaga umada wadac ya Ramadaan marxab ya kalamaan 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 Abdullah boos ka san guurtay tan dambiir wiin qaatay